labadan gabdhood ee halkan kaaga muuqda halkiis ayaa ka wada dhaxeeya. Gabadhan Xubbi ayaa loo yaqaanaa Ingiriiska inay ku nooshahan u malaynaya. Gabadhan Xabiba loo yaqaanaa wadanka Jarmalka ayay ku nooshahay. Soomaalida qurbuhu dhaqan aanay hore u aqoon ayaa labadan gabdhood lagu sameeyay. Arrinkanina halis waxa uu ku yahay qof kasta oo qurbaha ku nool iyo qof kasta oo ubad ku haysta qurbaha. Habeenkii xalay toola ahayd Xabiba gurigeeda boolis ayaa imaaday. Gurigeeda ayay jajabiyeen, iyadana jirdil ayay u geysteen. Sababta oo ah bal u fiirso, dad ayaa Xabiba iska dhigay oo Gmail Xabiba ku qoran yahay ayay samaysteen. Sidoo kale adareyska guriga Xabiba ayay ku qorteen. Kadibna booliska ayay waxay u direen waan isdilayaa, ubadkaygana waan dilayaa ee iga soo gaara. booliskina iyagoo ordaya oo raba inaanay hal daqiiqo lumin si aanu qofkani isku dilin ayay gurigii soo jabiyeen. Xabiba ayaanay qabteen sababtoo ah Xabibi gurigaas waxay ku haysataa 11 caruur ah. Qof yiri waan isdilayaana 11 ka caruur ayuu dilayay in la badbaadiyo caruurtaas ayaanay boolisku waxaas oo dhan u sameeyeen. Laakiin iyadu qof waxaas qortay ma ahayn. Gabar shaqaysanaysa ayay ahayd oo leefkeeda iskaga jirta, waanay ganacsataa, gabar aad u firfircoonna way ahayd. Qof Soomaaliya ayaa xaasiday oo booliska beenta u sheegay. Dhanka kale iyadoo Ingiriiska joogta, iyadana boolis ayaa gurigeeda imaaday oo dacwo ayaa laga gudbiyay. Xataa socialka ayaa iyada u imaaday oo gabadheeda yar ayaa la rabaa in laga qaado. Hadda ballan ayay leedahay oo kuwa socialka ayay ballan la leedahay. dood badanna waa geli doontaa. Ciddii waxa soo dirtayna waa la iska soo ogaan doonaa insha Allah biidmillahi kariim. Laakiin arrinkan gaala la iska dacweynayo wallahi waa arrin qurbaha ka cusub. Arrinkanina dhibaato waxa uu ku yahay caruuraha yaryar ee qurbaha ku kortay. Gabadhaas imarka Xabiba 11keeda caruur halis ayay ku jiraan. Iyadii waa la dhibaateeyay, gurigeedii waa la burburiyay, iyadii jirdil ayaa loo geystay. Waxaas oo dhanna waxa ka dambeeyay qof Soomaaliya la dhiiga oo xaasidaya gabadhaas oo nolosha u qooreen. Bal hadda gabdhahan iyo islaamahan eegse gabadha wacaynayaan. ban cunug isnood iisi jaamacadda adduunka marka waxaas waa beenta jaamacadna ma dhigatay wado jaamacadda masaydkii qumayanimada dhigatay waxay dhigatay ma jirto boorsooyinka ciyaalka isku soo sawirtay aawa jaamacadda dhigata meeda koofiyada aan tusto aawa هيا نكرجع جرجارة بيكولها عاون كملينا مجتمعات بقى وصل ضمعتني محاقل ضم المهم حاكل داعي المهم على قطعتي محاقل ضوير اسمها كوي بوكس كوتي بوريسكي وين كبرو مكس كهذا وصوت تعالى ما تسقيلنا ها jaamacadeeda iyo waxbarashadeeda iyo horumarkeeda iyo nolosheeda ayay wax ka sheegayaan. waxaana leeyihiin waxa soo dhan waa been. bal maxaa ka galay gabdhahan? waxa laga yaabaa kuwa dacweeyaba inay kuwan yihiin baa laga yaabaaba ma ogi. laakiin Soomaali sidii kuwanba waxa sidii gabadhaas ayaa gabadhaas cadow badan u yeelatay. gabadha Xubbi iyaduna cadow badan bay yeelatay. qaar badan oo Soomaaliyeed oo is haystaana arrinkan waa sameyn doonaan oo booliska ayaa la isku wada wacaya. waa arrin ku cusub qurbaha. bismillaahir rahmaanir rahiim. dadka san u xaasidiinta ay maxay ahaayeen? war waxaan dhaqan xumo weeye, war waxaan bini'aadantinimo ma ahan. war Ilaahay ka cabsada. caruurta yar maxay idinka galabsadeen? maxaa ka faa'iideysaan gabadha yar in ilmaheeda laga qaato? maxaad ka faa'iideysaan gabadhaas in ilmaheeda laga qaato oo ay ilmayso? maxaa faa'iido ku jirta? muuqaalkan waa inaad u sheer garaysaa qof kasta oo qurbaha jooga. waa inaad ku dhahdaa kiiskan cusub iska ilaali, gurigaaga adresskaaga qarso. haddaad qurbaha joogtidna isku sheer garaya. arrinkana arrin halis weeye.